السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال waxaynu ka hadli doonaa xanuunka loo yaqaan typhoidka sida ayuu u gudbaa maxaa keena maxaa looga hortagi karaa waa mowduuc aan kaga hadli doono xanuunka tiifowga typhoid fever ama enteric fever waxaa sababa bacteria la yiraahdo salmonella typhoid iyo Bradyaphi waxaana ay ku badan tahay dunida saddexaad ama wadamada aan wali horumarin sida qaaradda Afrika iyo Soomaaliya ku jirto waxaa lagu qaadaa cunno cabitaan aan nadiif ahayn oo ay ku jirto bacteria keenta xanuunka taas oo uu cuno qof aanan xanuunka qabin qofka xanuunka qaba uu gudbin karaa isagoo aan lahayn wax calaamad ah haddii uusan si fiican u nadiifin gacmihiisa kadib markii uu galo suuliga haddii uu gacmahaasi ku taabto qof ama cunto dabadeedna uu qof kale cuno waxaa dhici kara inuu qofkaasi qaado xanuunka calaamadaha lagu garto tiifowga waxaa ugu horeeya qandho ama xumad aad u sareysa oo u dhaxaysa 39 ilaa 40 centigrade taas oo marka ka dambeysa soo siyaadaysa kadibna waxaa ku xigaya calool xanuun calool istaag qufac qalalan madax wareer awood yari iyo wareer baaritaanada la sameeyo waxaa kamid ah blood culture iyo stool culture oo ah in qofka laga qaado dhiig ama saxaro dabadeedna la beero ama la kubciyo si loo ogaado in dhiigga ama saxarada ay ku jirto bakteeriyada keenta tiifowga waxayna qaadataa ilaa 3 bari balse baaritaanka ugu fiican waa in lagu baaraa PCR taasoo lagu ogaanayo DNA saxda ah ee bakteeriyada baaritaanka PCR waa qaali mana aha mid laga helo dalka waxa kale oo la isticmaalaa Widal test oo waqtiyo hore loo isticmaali jiray walina lagu isticmaalo Soomaaliya Widal testigu dunida aad loogama isticmaalo waxaana uu baaraa in bukaanka uu xanuunku ku dhacay uu jirkiisu sameystay unugyo ka difaaca xanuunka iyo in kaleeto baaritaanka ma cadeyn karo in qofka uu hadda hayo xanuunka tiifowga inuu waa hore ku dhacay waxaa lagu daweeyaa dawooyinka loo isticmaalo caabuqa antibioticska kuwaasoo la siinayo qofka muddo usbuuc ah waxaana muhiim ah in daawada ay tahay mid ku haboon oo daweyn karta xanuunka siyaabaha looga hortagi karo waxaa kamid ah nadaafadda oo lagu dadaalo gacmahaaga inaad dhaqdo markaad cunnada diyaarinayso iyo markaad suuliga ka soo baxdo inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeeni caafimaadka aan kaga hadlayno cudurka tiifowga